barordiiqdani ayaa ahayd mid ay soo qabanqaabiyeen garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan hoggaanka guddida fulinta ee xisbigaasi waxaana halkaasi ay dadkii ka soo qayb galay barordiiqdani ay salaatu jinaaso ugu tukadeen dhalinyaradii ku naf waayey badda Masar salaada kadib ayaa waxa halkaasi ugu horeyn ka hadlay afayeenka garabka dhalinyarada xisbiga wadani maxamed sadiiq dhamme isagoona ka warbixiyay sida ka xisbi ahaan ay uga xun yihiin masiibadii ku habsatay dhalinyaradaasi waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay jannooyinkiisa iyo nimcooyinkiisa uu siiyo waxaanaanu laabqaboojin iyo tacsiin la wadaagaynaa hooyooyinka ilmadu ka hibitiqaysay dhabanadooda afarta habeen iyo walaalada aan weli ilaawin walaaladooda badda ku halligmay waxa kale aan la wadaagaynaa tacsiin tiiraanya leh dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dareemay oo damaqday oo dareenkooga gilgishay tacsidan qaran waxaanu leenahay hadaan anugu rahay dhalinyaradii wadani waanu idin la murugoynaynaa walaalayaal waxaanu dareemaynaa xanuun badan waxaanu ka tahriibteen waanu dareemaynaa inay tahay rajo xumo iyo mustaqbal sawiran oo wanaagsan oo lagu naaloodo iyo Soomaaliland oo loo nidaamiyay oo loo dejiyay dhalinyarada Soomaaliland ayniya asaag noqoto dhalinyarada adduunka mustaqbalka laga gaabiyay qolo waliba intay doontaa soo gaarsiisay annagu xisbi ahaan iyo dhalinyaro ahaan waxaanu ka qorshaysan barnaamij siyaasadeed dhalinyarada rajo gelin doona oo soo noolayn doona rajadeena rafaadsaneed 25 rubuc qarniga waxaanaanu idinku wacyi gelinaynaa walaalayaal la tahriibin nafaheenayeenan halaagin nolosha raggu inay isdhiibaan maaha dhanka kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaana uu tacsiin u diray dhammaan beehelada iyo qaraabadii ay ka baxeen dhalinyaradii ku geeriyooday masiibada ka dhacday badda Masar gabagabadii ayaa u ducaynaya inay soo qabanqaabiyeen dhalinyaradii naga dhimatay aynu salaatu jinaasa halkan ugu tukano waxay saaran dhammaan muslimiinta oo haddii inay fuliso inta kale oo ka dhacayo dhalinyarada inaga dhimatay ee badda ku halaagantay intii naga dhimatay waxaan ilaahay uga baryayaa in naxariistii janno siiyo iyo dhammaan dhalinyaradii kale ee ku halaagantay shilkaas ee Soomaaliyeed ama Islaamkaba ahaa ilaahay ha wada naxariisto ehelkii iyo waalidkii dhibka haysta waynu garanaynaa murugada haysta waynu garanaynaa ilmada ka daadata waynu garanaynaa dhammaanteen qarankani waa qaran murugaysan waa ka murugaysan in ubaxoodii intaasoo qof ay waayeen maanta ku qaali ahaa dhalinyarada waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan inaanay tahriibin baan ugu baaqaynaa dagaalku wuxuu u baahan yahay adkaysi dhibta jirta wuxuu u baahan yahay adkaysi marka insha Allah isbedel khayr qaba iman doona isbedelkan inay ka wada qayb qaadato dhalinyarada waa loo baahan yahay halkaasi loogu duceeyay marxuumiintii ku naf waayey badda Masar in ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo Yacquub Saciid Kuuriya Somali News TV Hargeysa